mar kale waa mahad waxaan idin leeyahay maanta ama idin sheegayaa 7 shay ama 7 ficil ama 7 arrimood oo ay ka siman yihiin dadka guuleysta oo hubaalna ay tahay haddii aad samaysid xaqiiq ay tahay inaad ku tilaabsanaysid gool waliba xilligii aad u qorshaysay inaad guushaasi ku tilaabsatid biidnillaahi alkariim midda koowaad waa dulqaad u yeelo hadafkaada macnaheedu waa inaad ku sabartaa ama aad u sabartaa wax walbo aad haminaysid ilaa waxaan sabar lahayn meel lagama gaaro ruuxa sabarka badan lene sabarka sidiisabana sibirka waa ka qaraar yahay inna allaha maca asaabiriin ilaahayna wuxuu la jirankooda yahay kuwa sabra taasi waa midda koowaad midda labaad si adag u shaqay macnaha waa inaad caajis meel iska dhigtaa waa inaad hurdada iska dhaaftaa macnaha hurdo iska dhaaf ulama jeedo laakiin waa inaad hurdada xilligeeda aad hurdaa wixii ka bataa xilligaasina aad meel iska dhigtid biidnillaahi alkariim waa xaqiiq ilaa ninkii seexdaa siciis dibi dhalay midda saddexaad wax ka baro dadka ku dhaleeceeya ilaan qof aanan la dhaleecaynin meel ma gaaro waa in lagu dhaleeceeyaa oo lagu eedaa oo wax lagaa sheegaa oo lagu dhahaa waxaad waddi waxba kama jiraan waaye waad isdaalinaysaa waad iska waalaysaa meelaadan gaarinaad isgaarsiinaysaa waxaasi oo dhan waa waxaad u baahan tahay waxaasi oo dhan waa waxaad u baahan tahay loomana baahna inaad u joojisid midda afaraad isbeddel muuji macnaha mar waliba ma ahan laakiin mar waa in lagaa dareemaa mararka qaar inaad wax isbeddela aad soo kordhisay inaad wax isbeddelaha keentay inaad wax qabad leedahay waa in lagaa arkaa isbeddelkaasi biidnillaahi alkariim midda shanaad hammigaaga aaminsanaaw ilaad waxa aad qabanaysid hammigooda iyo hammiga aad ka leedahay mira dhalkooda waa inaad aaminsanaatid taasi ayaa loola jeedaa maxaa yeelay Bill Gates fideogii uu duubay ninkii dunida ugu taajirsanay sanadadii hore fideogii uu duubay 1983 oo uga hadlayay Microsoftiga asigoona waxba aanan ka qabanin wuxuu yiri hammigayga waan aaminsanahay Microsoftne dunida idil ayaa u baahan doonto laakiin maanta ma ahan laakiin waa beri iyo beri dambo maxaa uu dhahayaa hadalkaasi wuu aaminsanay hadafkiisa midda lixaad ku qanacsanaaw waxa aad samaynaysid ku qanacsanaaw shaqada aad haysid ku qanacsanaaw waxa aad baranaysid ku qanacsanaaw xaaladda maanta aad taagan tahay ku qanacsanaaw wax walba oo ku haleela ku qanacsanaaw qadarta rabbi marka qanaacadaada oo buuxsanta hadafkaaga oo dhaqaaqa oo sigta ayay ka turjumaysaa biidnillaahi alkariim dadka inta mudan kala sheekayso qofkii wax ku dheer la sheekayso midkaa hooseeyo iska ilaali dadka da'da kala sheekaysa adduunyada ka warayso dadka culummada ahna ka warayso aakhiro waan isfahanay maxaa yeelay aakhiro waxaa ka warramo ninkaa cilmi badan adduunyana waxaa la weydiiyaa ninkaaga horreeyey soo sidaas ma ahayn adduun waxaa la weydiiyaa ninkaaga horreeyey aakhirana ninkaa cilmi badan marka biidnillaahi alkariim waxaan rajaynayaa intaasi inayna anfacday in sha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fideogoogina xigo ayaan kulmi doonaa biidnillaahi alkariim